munaasabada ay soo agaasimeen ardayda gelinka dambe wax ka barata jaamacadda New Generation gaar ahaan Social Science-ka ee barta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda. munaasabada ayaa ujeedadeedu ahayd sidii ay ardaydu soo bandhigi lahaayeen cilmi baaris ay ugu baxeen Buurta Gacan Libaax iyo ahmiyadda ay u leedahay Somaliland iyo sida loogu baahan yahay in looga faa'iideysto juqraafi ahaan Buurta Gacan Libaax. waxaa halkaasi ka soo qayb galay macallimiin iyo hormuudkii hore kulliyadda Social Science-ka marti kale iyo aqoonyahan wax ka bartay jaamacadda. intii munaasabadu socotay waxaa lagu soo bandhigay daraasadda iyo cilmi baarista ay sameeyeen ardayda dhigata siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ee gelinka dambe ee jaamacadda New Generation. qaar ka mid ah macallimiinta ka soo qayb galay ayaa hadallo dhiirigelin dardaaran ka jeediyey intii ay munaasabadu socotay, waxayna ka warrameen sida loogu baahan yahay in aqoonta ay halkaa ka sii wadaan dadaalkana ay sii kordhiyaan dhinaca cilmiga. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oo ku hadlayay afka maamulka jaamacadda barasare ee Muumin. wuxuu ka warramay ujeedada jaamacadda iyo siduu ugu faraxsan yahay inuu kala soo qayb galo soo bandhigidda daraasadan ay sameeyeen ardaydu. sidoo kale diinkiina hore Cabdirasaaq runtii waa nin dhalinyaro ardayda jaamacadda soo saartay kamid ahaa dhalinyarada jaamacaddana kamid ah. jaamacadda New Generation guud ahaanba waxay aaminsan tahay dhalinyarta iyo daayarta dhammaanteen dhalinyar baynu nahay. waxaynu isku dayi doonaa dalkana inaynu barno in dhalinyarta la aamino, chance la siiyo, sida dunida jaarkeena iyo wadamada jaarkeena baynu ka arkano. ragga wadamada jaarkeena hogaaminaya Abiy Ahmed iyo ragga la midka ah waa rag dhalinyaro. waxaan rajaynaynaa insha Allah inaguna inaynu aamini doono dhalinyarteena oo ay dalka iyo dadkaba hogaamin doonaan. sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Cabdirasaaq Garaad oo ahaa hormuudkii hore kulliyadda Social Science-ka oo xilka laga wareejiyay kana mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda, ayaa isaguna tilmaamay sida loogu baahan yahay inay ardayda ka muuqato midhihii la baray iyo siday uga faa'iideysteen. aan arko midhihii aan soo saarnay runtii aniga saaxiibadayda la shaqaynayay jaamacadda New Generation ka tirsanaa iyo jaamacadda naftigeeda dadaalkii aanu gelinay kii waalidiintu gelisay dhammaan in midhaheeda ay muuqdaan runtii oo theoretically aan isleeyahay wax badan baa ka hagaagay. I don't know practically wax badan baa inoo dhiman. marka arinta aad baan u baarigayaa, aad baan u hambalyeeynaya, aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. waynu wada shaqaynaynaa mar walba fiilka tacliinta dalka hadii la hay'admo waxaan jecel lahay inaynu dhammaanteenba wax ka wada bedelo oo dhiig cusub lagu shubo. gabagabadii waxaa halkaasi abaalmarin iyo shahaadooyin la guddoonsiiyey dadkii ay ugu tala galeen ardaydu inay abaalmarinta ay guddoonsiiyaan.